jirka bini'aadamka wuxuu soo saaraa hormoonis fara badan. Hormoonka testosteronka, hormoonka hurdada melatoninka, hormoonaga marka waxaa jira oo ragga ku gaar ah midna dumarka ku gaar ah walaalayaal. marka hal hormoon waxaa jirta oo dumarka u gaar ah, waa hormoonkii dumarka waaye, waa hormoonkii noloshaadii aan dhihi karaa, waa hormoonka ku siinaya waaye horta hurdo fiican aad ka helaysid. kan labaadna maxaa waaye muudka iyo waxaad maasha Allah misaajka kuu fiicnaynayo oo xanaaqa badan waxaas dhan kaa baabi'inayo. saddexna waxaa waaye caado khalkhalkaaga caadadaada toosinayo. afarna maxaa waaye mataqaanaa ugxantaadan aad u xoojinayo, takyiisul mabaayidku ka hortagaa. shanna waxaa waaye walaalayaal hormoonkaasi dumarka dhedhel caadada ma uu go'aayo oo micnihiisa ayagoo da'dooda sii socod xataa bil walba gabadha caadadeeda way shubanaysaa. waxaa kaloo ka mid ah hadday xaamilo noqotone magaleenka uu adkeynaya ilmaha kama soo daadanayo. marka hormoonkaasina waa hormoonka la yidhaahdo estrogen. marka estrogen walaalayaal hadduu khalkhal kaa galo waxaa dhacayo koo horta caadada ma ku toosayso, wax kasta samee caado ma ku toosayso. labana maxaa ku haray waxaa waaye jirkaaga ugxan badan ma soo saarayo, takyiisul mabaayid ayaa kugu dhacayo. ugxan hadday kugu jirto xitaa lama arkaayo ugxantaadii, dhalmadu way kuga adkaanaysaa. maxaa kaloo ka mid ah maxaa waaye xilli aan la gaarin caadadaada inay go'dane way kaa go'aysaa. haddaad uur qaadidna ilmaha uurkaasi waa soo halaabaa inta badi. intaas maxaa ku dheer hurdo fiican ma helayso, dhiiggaaga hawee maalin waa kacsan yahay le, misaajkaaga ma fiicnaanayo. waxaa kale intaas kuu soo dheer khaleel badan baad hoos isku arkaysaa, damacaagana oo xagga oo shahwadana wuu baaba'aya. hormoonkaasi marka walaalayaal hadduu khalkhal kaa galo sidee ayaa khalkhalkaasi lagu daaweyn karaa oo balance loogu dhigi karaa? waxaa waaye waxaa jirtaa bitamiin walaalayaal. bitamiinkaas dhakhaatiirta badi makuu qorayaan, waayo haddaa reesato oo dhibkii ku hay aa ka baxdid goorme dhakhtarka ma tegaysmo, kuwa daacadda le kugu qorayso. bitamiinkaasna waa bitamiinka dumarka waaye. qof walba dumar ee caado khalkhal hayo ama dhibaato xagga dhalmada ka hayso bitamiinkaasaa u baahanta oo la yidhaahdo folic acid. folic acid bitamiinkaasi. marka bitamiinkaasi walaalayaalo oo la yidhaahdo folic acid wax haddaan ka sheekeynaya dhan waa kaa daaweynaa, caadadu ku toosinayaa, hormoonkaagu balance ka dhiga. mar haddii hormoonkaagu balance noqda, hormoonka estrogen la yidhaahdo, caadadii caaday kuu noqonaysaa wax walbo. asiga marka bitamiinkaasina waxa waaye waa haddaad heli karin waaye waxyaalaha mudaawaadka ee horaan usoo sheegnay, bordokoosh iyo marmiya iyo isaar aniis haddaad qaadanaysa saddexdaas muddo 3 bilood hormoonkan wuu hagaagaya. haddaadan ka gaarin wax karkariyo bitamiinkaas la yidhaahdo folic acid isticmaalay, wixii problem hadda kasoo sheegay dhan asaana kaa xalinayo. laakiin dhibka jiro waxaa bitamiinkan haddan kooskan joogaa, Sam's Club waa jiray, Walmart waa jiray, badi lama helaayo keligiisa oo meel taagan lama helaayo. isbitaalada le badi uu yaalaa, dhakhaatiir inay kuu qoraan waa isbitaaladana. laakiin wuxuu ku fiican yahay bitamiinkan walaalayaal waxa waaye wuxuu ka mid yahay B group. فيتامينك B group mataqaana B3 oo vitamin B-ga groupkiisu ku jira. vitamin B waa ka hadalnay, B12 aan dhahnay kan hadda waa B12 waaye, ki nervaha urorameno asigana waa B9 waaye. vitamin 9 waa folate waaye, waa folic acid waaye, groupkaas uu ku jira. marka dib bun la waayo bedelkiisa lama waanayo, haddii kaligiis aawaysa marka vitamin B complex yaa gadanaysa. B complex kan super B complex waaye, vitaminadan oo B complex meesha rabtaa ka gadan kartaa, kambanigan le qasab ma gadanay. waxa waaye hal dhagaxa 10 shimbir ku disho waayo B12 kuna ku jira nerbion waaye, nerbaha ki u roonay waaye, luga xanuun, dhabar xanuunka kulli waa u roon yahay. B9 ku jira, B6 ku jira, B1 B2 B3 dadka oo mataqaana sportkiska ama jiimamka aad oo muruqyaha marwalba xanuunayo, dadka shaqooyinka istaaga ka shaqeynayo, B complexigan haddaa qaadatid kulli waa isku helaysaa. waxaana ku dheer folic acid ku jira. folic acidkana wuxuu ku fiican yahay haddaa qaadanayso anemia ma lagaa maqlaya, waayo ironkaada mar walba high u ahaana, sidii la rabay u ahaanaya. madax wareerkii badnaa iyo xanaaqii badnaa iyo wadna garaacii badnaa wixii dhanba waa ka neefsanaysaa. marka walaalayaalow messagekan wuxuu ku socdaa
dumarka waayo hormoonka ka hadlaya waa dumarka ee haddaad waxyaalahaas isku aragtid caada wareed kulli waxaan ka soo hadalnay fitamiinkan raaso folic acid haddaadan heli karinne waa kana waxaa raasanaysaa b complexgan iska cab waayo kulli aaba hal mar wada helaysaa ilaahay waxaan ka baryaa inta xanuunsanna ilaahay caafimaad siiyo ilaahay waxaan ka baryaa inta awlaad raadinaysana ilaahay awlaad oo saalixiin oo baare ilaahay ku arsuqo inta kurbaysana khaasatan fruitiska ku badan fiberka ama alyaafka ku badan fiberka maasha allah tabaaraka allah iyo waxyaalaha cagaarka ee sida spinach kuwaasna caloosh way ku socodsinay laakiin waxaa jirta fruutooyinka caloosh soconayo qaarka kale way ka daran yihiin mid fruit waxaa jirta dadka sokorta wax qaban aan dhibaynin ilaan sokortana ku yar tahay low glycemic index waaye maasha allah full waa dareemaysaa oo wax badan baahi mu qabanayso waa ku caatoobay sokortaadan ma ku darsamayso calooshan way ku bixaysaa muxuu yahay kiwi waaye geedkan waa wada naqaanaa markasta meel kasta adduunya la joogo kiwi fruitkan kiwi waa wada naqaanaa ya marka kiwiga walaalayaal maasha allah tabaaraka allah waa ujeediin wuxuu ka mid yahay fruutooyinka oo fiberka ku badan oo calooshaadii aad u socodsanayso asiga marka laba nooc waaye mid waxaa jirtaa macaan oo kiwi oo mataqaanaa oo midkan kalarkiisa xataa waa ka duwan yahay waa ujeedaa midka wac waaye waa golden waaye kalar wuxuu qabaa dahabi ee golden kiwi allah haddaa ujeedaan midna waxa waaye dhanaan waaye nooca kala waaye oo green kiwi marka labadoodba fiberka waa ku wada jiraan laakiin maxay ku kala duwan yihiin kan goldenka waa mac yahay xoogaa yar sokortiisa waxaa ku jirta halkii xabo 20 gram yacni laba qaado oo yariis oo sokor ah ku jirta oo wabu ku imaaday wax ma ka dhibaayo waa low glycemic index waaye laakiin macaan waaye waxay isku dhan yihiin isboondheeskani Soomaaliya kiwigan oo macaanka ee goldenka midka dahabigan ka hadlooya midkaan ka hadlooya mujeedin ya goldenkan macnihiisu waxa waaye maasha allah kan kalena waxa waaye asiga laakiin hadan waxaa ku dheer 3 goor wuxuu ka badan yahay midka goldenka vitamin C ga ku jiro 3 laab uu ka badan yahay kan lima orange da ku jirto waxa uu ka mid yahay fruutooyinka adduunka yaalo ugu badan vitamin C hadduu vitamin C badan jirka uu helana difaaca jirkaaga amyuunkaaga cirku galaya jirooyin badan oo dadka wareeriya adiga waxa waaye waa ka nabadgelaysa kan cagaaran laakiin walaalayaal kan cagaaran waxa waaye kan cagaaran laakiin walaalayaal midka cagaaran waxa waa asiga sokortiis waa yartahay 3 gram oo sokor ku jirta qaada ibar maxaa ku badan asiga fiberka ku badan tan kalena maxaa waaye maasha allah tabaaraka allah kiwiga cagaaran caloosha waxa isku socodsiinaa si inaba caadi ahan kana vitamin C ku badan kana fiberka ku badan laakiin labadoodiba maasha allah tabaaraka allah labada maalmood walaalayaal marka Mareykanka waxa aad loo keenay Costco Semiskalaab kulli way keeneen kiwi oo laga keeno New Zealand labada waa hayaan xoogaa Costco qaali ay gedooyin laakiin Semiskalaab $7 la gedooyaabo weelkan dhan aa ujeedin $7 marka midkan walaalayaal reer isboondhees haddaad tahay kiwiga noocaan ma ujeedin noocaan goldenka ah isboondheesa u dhaaranaysaa weli inta kor busbaas lagu shubto oh my god inaba caadi ma aha barakallahu fiikum kan kalena waxa waa asiga mataqaana marka labada haddaa isku shiidid cabitaanka dhigatid calooshaadi maba fadhinayso subaxdii khaasatan markaa kacdid hal xabo midkan cagaarka haddaa cuntid ma fahmaysaa ya marka فيتامين بدن واقو جران كي بيجا هم وجانين سيدا دتك مثلا بوتاسيوم بدن واقو جرا دتك ديكر كخبو ديك واقو خبو جنا فيتامين سي وانشاقي كان جولد واقو جرا فايبر بدن واقو جرا ولا ليالو الله رب حواي معادن مينرالز فيتامينز واكبوها marka kiwi meesha ku aragtid waaba ma sha Allah dadka oo daabirikne friendly u leeyahay waxba waa dhaqaatiirta kula talinaysaabo barakallahu fiikum walaalayaal Costco Semiskalaab kullin uu yaalaa price-kiisana adiga $7 iyo xoogaa ilaa $10 u dhaxeeya meesha ku dhow ka gado assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh